السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمها له وإن السلام يا صوماليين من البلدان كجوكتان سلامة الإسلام كان يكون سلامي أنت كدب هلك نقدر ونيسان وشانلك صومالي فويس تي في أصحابي مروا البو ويدي مهد علنيا وما سنتهين ما أنت إلى جوجو قبل ولا الله يا أو تيم كي أن ما عنده يدي شيء إنه إلى جوجو تيم وذا تشير marka maanta waxaan ugu soo biirtay gabadh cusub oo walaasheena oo Saaral la magaceeda iyadana waan barayaa insha Allah codkeedana waad maqli doontaan iyo aragtideeda asxaabay waxaan rabaa maartay inaan ka hadlo maalmahan arintii social media haysatay ku saabsanayd Kamal Abdul iyo maartay gabadhii ayadna walaasheena hayday maartay hani marka asxaabay kuma dheeraanayo laakiin kaliya ani macnaha wixii aragtidayda abaan maartay ka dhiban rabaa intaan horta gabdhaha soo dhaweynin yaa waxaan rabaa horta in ani aragtidayda aan dhiibto macnaha waxaan ka qabo macnaha arrinkaas ayagana aragtidoodan weydiin doona horta wiilka dhalinyarta ee macnaha youtuberka ee Kamal Abdul kulli ani aragti ahaan nin wanaagsan oo maartay waxaan ka aaminsanahay nin fiican oo maartay aad u firfircoon oo nin dhalinyaro oo dadaal badan runaantii micnaha aan xitaa maartay ama channelkan aan furanin oo muuqaal soo dhigay marani horta asxaab u ah asaga waxaan ka helay oo kaliya macnaha muuqaaladiisa iyo farxadda leh maartay iyo sidii uu barnaamijyada asxaabta ula wadaagi jiray runaantii ruux xasadan uma eko oo maartay nin fiican oo iska degan waay inta kadib xitaa waxa waay ninkaani sida igala muuqatay nin iska ehludiin oo nin dhalinyaro oo iska wanaagsan marka dadka hadda dhaleecaynaya maartay ceebaha iyo waxa maartay la doonay horta dad xasiidin aan u arkaa marka nin dhalinyaro haduu yahay macnaha ma fiicno in maartay niyada laga dilo in hore u socdaal rabaa aragti ahaanna mid hadda gabadhaas arinta ay sameysana kulli hadda soo sheegay wiilka macnaha yani way ka qarisay wax walba way ka qarisay inay amar leedahay ama ay caruur leedahay way ka qarisay runaantii markaan codadkeedii iyo wixii la wareystaan dhageysanayna maartay aad bay isku burinayeen marka dadka ku haysta ee maartay uu ogaa macnaha ninka dhalinyarada iyo waxa dhahay anigu waxay ilaa inuu suugayn sababtoo gabadh macnaha lama ogaan karo maxay heedeeday ku dhahdo yani nin ma soo marin adduunka dad baa xitaa waxaan arkay xitaa dhalinyaro la maartay suuq ogaan way islaan garo adduunka casri uu maraya nimayo waxay idin sheegay kowdhe يا الحين بشر بريان لسه صار ما فهمتين يقرأ النقطة كود مركز سحبته بشيء إني واحد بشران مركز ضدك حاسين ته نك دلنيرتا هرمرك له ما عرفت ده هر أصعد خيب هي الواحد قبنايو عن له ورنمايو نك حنية هواقع قوانينه نك معناه نك صعد من دلنيرا ويأد والله وفي فرعونية حتى مارتي ونونس أنا أركت هان مركز Soomaalidu iska dhibaan tahay maxay yeeday ceeb ay ku raadinayaan maartay markaad ay ka arkaan horumar inaad sameynayso ceeb ay ku raadinayaan dadka xitaa hadda maxay yeeday baraha bulshada ku dhaliilaya waxaanay xasadnimo YouTube-kiisa ay ka xun yihiin u baahayd wallahi xitaa aniga aan idin sheego ninka ma aqaan wallahi ilaahay bay goog ma aqaano kaliya asxaab aan u ahaa macnaha YouTube-ka dadka daawadaan ahaa ku xiran macnaha maxay yeeday marka aqoon kale oo ilaahay ma jirto xitaa dad baa leedahay Soomaali ya oo qabiile war xitaa qabiilkiisa ma garanayo aqoon kale u lahaynba ya dad baa saadhiyo doon marka asxaab wallahi Soomaalnimo ninka maartay ku taageeraya sababtoo ah nin maartay ay xaas intuu guursaday waxay ka damimaadeen wallahi xanuun waa ogtiin xanuun saa'id waa irnaantii maanta nin walba oo Soomaaliyeed oo arinta ay qabsatan kulli uu arki doonaa laakiin nin walbana uu ninka aqli laho Soomaalinimo ku jirtan uu dareemi karaa xanuunka ay leedahay marka in la caayimo ahaan in maartay ninka la dhiirigeliyo oo wallahi arin xun baa kugu dhacday la dhaaway marka warkayaan ku badin asxaabay insha Allah gabdhaha walaalada yaan weydiinayaa bal waxay ka qabaan aragtidaas fikradaas marka hadda waxa ku soo dhaweynayaa bushro aragtidaas aan hadda ka hadlayo iyo arintaas maalmahan taagneed waxa ka aaminsan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإذن سلامي والله horta walaalow ani waxaan ka aaminsanahay horta qiyaamada shay fiican maaha in la isqiyaamana yani hadda Soomaalida kuma cusba labada dhinac oo bariyahan qiyaamada way ku badan tahay marka wiilkaas hadii la qiyaamay oo yani muslimka waxa ugu muhiimsan kitaabka Ilaahay la aamino wiilkaas aduuba kitaabka Ilaahay ku dhaartay uu leeyahay waa la qiyaamay yani qof kitaabka ku dhaartay horta meel kale loo raaco oo magac Ilaahay ku dhaartay malaha marka waxaan leenahay gabadhaas walaashay haday wiilkaas qiyaamayso oo qiyaamada ku dhacday
hortaa ka raali geliso iyadana ilaahay ha cafiyo sababtaa laba nin qof dumara ma wada guursan karto ilaahayna uma banaynin marka arrintaasaan ka leeyahay hadalkaygana ma sii badinayo gabdhaha walaalahay waan soo dhaweynaya insha allah waad mahadsan tahay arrinteedana waad ku mahadsan tahay marka waxaan soo dhaweynaa walaashan Sahra iyadana waxay ka aaminsan tahay ama ay ka leedahay السلام عليكم أصحابته وإن سلامي أنا هرتو ويلكاس أقول أمليه لكن أنت بدن وكو أركاميديها لكن ده سيدة ذا وحالي الصومالي ذا وهري وحقوم مهماده قفه تقاني دياتها لما ده لكن أساقمونا قرنينين كل dadka miidiyaha la iska wada bartay oo dad miidiyaha la iska wada bartay waaye kulay gabadha saan fiilay qof ay miidiyaha ka bartay waaye meeshaan adduunka sidii hore ma ahan waa sii socdaa adduunka uu isbedelay midda kale waxa waaye de uu garan karaa qof ilmo soo dhalay iyo qof aan soo dhalin iyo qof la soo guursaday ninka naftirkiisa haduu dhalinyaro hata uu yahay uu kala garan karaa inta badan de haddana nimankiina waxay dhahaan ilmo ma qabno kuwo badan oo arkay oo been sheegay way jiraan dumarka sidoo kale way jiraan laakiin de labada qof haday yani isla nolol isla wada galaan way garan karaan qofka haduu ilmo dhalay iyo haduuna dhalin midda kale gabadhaas iyada way u bareertay oo de qof weyn oo caafimaad qaba inay tahay waa loo jeedaa marka waxaan dhihi lahaa wiilkaas way qayaantay waxaan dhihi karaa inay cafis ka dalbato oo ilaahay ka baqdo oo de adduunka laba bari waayo waa laga galbanaya qof walba karfantaas uu ka qaadanaya adduunka waa iska yar yahay marka waxaan dhihi lahaa walaashay waa inaad ka dalbataa wiilkaas cafis insha Allah asagana de waa inuu ka fiirsadaa de anaga hore noomoona tusin arooskooda ama iyagoo wada is aroosay laakiin iyagoo miidiyaha la soo galiyay oo la leeyahay arrintaas dhacday un baan aragnay laakiin waxaan dhihi lahaa wiilka naftirkiisa waa inuu waxyaalo badan ka fiirsado dibna uu u fikiro de una dambana uu ku dhicin gabadhana waxaan dhihi lahaa ilaahay ha ka baqdo insha Allah waa inuu salaamayo aad iyo aad baa u mahadsantahay walaashii Sahra waxaan ku soo dhaweynaa haddana walaashii Munish maxaa ka leedahay arrimahan haddana ka soo hadalay maalmahan baraha bulshada haysta maxaa ka leedahay aad iyo aad baan horta u salaamaya asxaabtaada waxaa soo dhawaada walaahi horta yani wiilkaas in badan waan fiirsadaa asxaabaan u ahay waxaa weeyaan waana wiil la khiyaanay oo Soomaaliyeed qofka markuu reer dhisanayo hami buu leeyahay marka walaahi ni jab aad aha ku dhacday waxaan dhihi lahaa wiilkaas qalbigiisa Allah u adkeeyo oo Allah u kabo waxaan leeyahay gabadhaasna kulay dambi bay gashay oo iyadoo rag ma ahan dumar waaye rag Ilaahay afar buu baneeyay laakiin dumarka de Ilaahay waa maartay hal noo baneeyay annaka marka kharad bay ku dhacday wiilka cafisa ka dalbato iyo maartay Ilaahayna cafisa weydiisato dawaacib inta laga fadeexo kulay qof dumar inta kala saameyn been u yeelatay naqsad waraan u nahay saameyn been u yeelatay dumarka la wada dhihora waxa la jiray rag maartay ciyaalkooda qariyo xoogaa maartay hadda dumarka bilaabay marka wallahi marka waxaan dhihi lahaa dumaro waxa weeyaan is ilaaliya insha Allah waa dambi inta la eg mar dambana waxaan malaynayaa inay maartay كل واحد عضي لكن وكل عضي ويل كنيد وكتبتي لكن السلالية دمروا أنت المات السلالية كرتان أنا السلالية سنس قطايا رقمني هنا كبر أصلا إلهها عفيا أيضا إلهي كده ونقطان ليه هاي aad ba u mahadsantihiin walaalahay qaali inta kadib horta arintan hadda aan ka hadlayno wax hadda cusub ma ahan waa wax dhici jiray Soomaalina uu ku badan yahay yani arrimaha way jiraan أنا بدي وحلا قدي ترجع ولا فرار. أوكي. لا فرار. لا مال بيفوش. مركا محي هذي ويجرين هذا معناها لكن كلية وحواي واحد هذا داعي يعني وحي السوشيال ميديا اللي كاني أو لعبية معناها وحي معناها فذا حد عادي اللي سيبون بوني وحي أمارت يا وح كلا نقضي أو لقى دقي وح كلا لكن هو وح سيجري جري سومالي أنا مارتي ويلا هيد مركا de arinta kalena waxay ahayd yani islaantii oo maartay carruurteeda ay leeyihiin maxay ahaydey hooy ay leeyihiin ba waxay tiri ma dhalin bay tiri taasa xanuun noqotay oo adduunka iyo xanuun iyo wax kale ku noqotay ha markaas xaabay waxba yaan warkadin ku sii daalinayna bal wixii dambe la iska ilaaliyo
wax walbana qariya bal ilmihiina gabdhaha Ma qarinina ilmihiina ha qarinina. ha Raggana ilmahooda raggow ha qarinina. ilmihiina ha qarina iyagana way dhacdaa laakiin way yaan dhacdaa samaynin. bal saasna macnaha yaa la iska ilaaliyo gabdhuhuna waxaan dhihi lahaa bal gabdhuhuna bal haddii laydin qabo laftirkiina xishooda saasaa wanaagsan xitaa aakhir ahaana idima fiicno adduun ahaana idima fiicno marka dee taana waa naga waano yani haddii la iswaaniyana wax ceeba ma lahaan wax ceeba ma lahaan haddii la iswaaniyo waa wax wanaagsan waay waanada marka saxaabay gabagabadii waan maraynaa waxaan idin leenahay isla socod wanaagsan subscribe-ka noo saara like iyo share halkaad naga daawanaysaana waa channelka Somali Voice TV isla socod wanaagsan iyo maaragtay muuqaale xiiso badan oo xigi doona insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh